kooxda Liverpool toddobaadkan kaliya ma aysan ahayn kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League balse Liverpool waxay sidoo kale toddobaadkan ahayd kooxda hogaaminaysa insaaniyadda kooxaha kubadda cagta ee dunida iyadoo aan ognahay Liverpool inay kaalinta koowaad kaga jirto kooxaha ugu waaweyn adduunka khaasatan kuwa ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League kabtan kooxda Liverpool Van Dijk iyo weeraryahanka muslimka ee kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa waxa ay si lama filaan ku booqdeen wiil yar oo la xanuunsanaya cudurka loo yaqaan wolf ama genetic disorder oo ah cudur dhif naadir ah oo ku dhaca dadka xilliga ay yar yihiin qaarkoodna ku dhasha cudurkaas oo sababa qofka inuu sidii rabay uusan u korin ama inuu sidoo kale gaarin xilligii uu noloshiisa ay gaari lahayd waxa cudurkaas sidoo kale uu sababa xanuuno kala duwan sida xanuuno ku dhaca wadnaha iyadoo wiilkan yarka ee jirka ee qaba baahiyaha gaarka uu maray khaliimo aad iyo aad u kala duwan xitaa mar loo xisaabiyay